bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qodobo xasaasi ah oo la isku mari laayahay shirka u dhaxeeya Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada Rooble oo ku doodaya in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo iyo madaxda taabacsan madaxweyne Farmaajo oo diidan qorshaha Rooble waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay shirka iyo xilliga la soo xirayo midowga musharaxiinta mucaaradkana waxay soo saareen dalabyo xasaasi ah oo la xiriira doorashada al-shabaab iyo daacish oo dagaal xoogan uu ku dhexmaray buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari qasaaraha dagaalkaasi uu geystay iyo xiisad wali ka taagan gobolka bari ayaad warkeena ku daawan doontaan wararka caalamkana waxaad daawan doontaan booliiska dalka Hindiya oo qabtay dad lagu eedeeyay bahdilka gabdhaha muslimiinta ah ee dalkaasi qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe sar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta qodobadaasi markale kulan wacan aan ku bilaabo wararkeena shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta galay maalintii saddexaad iyada oo uu horyaalo qodobo ay adag tahay in heshiis laga gaaro oo la xiriira amniga dalka sida aan xog ku helnay qodobkan ayaa ah in Maxamed Xuseen Rooble uu doonayo in shirka la isku raaco in amniga dalka si buuxda loogu soo wareejiyo haddii aanay taasi dhicin aanay dalka doorasho hufan ka dhici karin Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaan arintan marnaba qorshaha ugu jirin ase yeeshee wuxuu yimid kadib isku daygii fashilmay ee 27kii December lagu qabsan lahaa xafiiskiisa Rooble ayaa waxa sidoo kale arintan ku cadaadinaya midowga murashaxiinta mucaaradka oo rumaysan in madaxweyne Farmaajo oo gacanta ku haya awoodda amniga iyo ciidanka dalka aysan dhici karin doorasho hufan qoraal ay shalay soo saareen midowga musharaxiinta ayaa waxa ku jiray laba qodob oo la xiriira amniga waxaana lagu yiri waa in ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas'uul uga noqdaan amniga dalka madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa labo sida uu dhigayo dastuurka ku-meelgaarka ah waa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay xaqiijiyaan in ciidanka laga dhex saaro arrimaha siyaasadda madaxweyne Farmaajo ayaa horay Rooble ugu wareejiyay amniga doorashada balse taasi wax weyn ma bedelin waxaana wali hay'adaha amniga si buuxda gacanta ugu hayo madaxweyne Farmaajo sida mucaaradka ay aaminsan yihiin ra'iisul wasaaraha ayaa rumaysan in haddii golaha wadatashiga qaran ay qodobkan isku raacaan shuruudna uga dhigaan dhameystirka doorashada inay hogaamin karto in beesha caalamka ay cadaadis ku saarto madaxweyne Farmaajo inuu sidaasi sameeyo inkastoo ay u badan tahay in madaxweyne Farmaajo uusan marnaba taasi aqbali doonin Rooble ayaa qorsheenaya in haddii uu amniga gacanta ku dhigo inuu bedelo dhammaan taliyaasha ciidamada dalka si uu awoodda dalka si buuxda gacanta ugu dhigo si kastaba qodobkan ayaa waxaa aad uga soo horjeestay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ku xiran madaxweyne Farmaajo waxaana ila wareejo ka tirsan Villa Soomaaliya ay inoo xaqiijiyeen inaysan marnaba aqbali doonin qorshaha uu damacsan yahay Rooble waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeyay al-shabaab iyo kooxda daacish oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka bari ee maamulka Puntland gaar ahaan dhulka buuraleyda ee gobolkaasi dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga dhacay buuraha calmiskaad waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ilo deegaanka ah ayaa inoo sheegay in dagaalka uu socday muddo saacada ah uuna jiro qasaare soo kala gaaray labada dhinac walow aan cadayn karin inta uu gaarsiisan yahay wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalka uu yimid kadib markii labada dhinac ay ku kulmeen tog lagu magacaabo Il Cameyra oo ku yaala calmiskaad sida aan xogta ku helayno waxaa weerar ka qaaday dagaalyahanada daacish ka gadaal markii ay ka war heleen in xubno ka tirsan shabaab ay sahan ku tageen halkaasi xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaa deegaanada dhaca dhanka buuraha ee gobolka bari ee Puntland kooxaha al-shabaab iyo daacish ayaa labaduba waxay ku xoogan yihiin gobolkaasi waxayna marar badan siyaabo kala duwan ugu dagaalameen halkaasi qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay booliiska dalka Hindiya ayaa xiray haweeney 18 jir ah oo la xiriirinayo ab la soo geliyay sawirada in ka badan 100 dumar muslimiin ah oo la sheegay inay iib ahaayeen
saraakiisha ayaa aaminsan in gabadhan ay samaysay abka Bulibay sida ay ogaatay BBC-da. waa xarigii labaad ee loo sameeyo kiiskan. goor hore wiil 22 jir ah oo jaamacad ka dhigta kuliyadda injineeriyada ayaa xabsiga loo taxaabay. wiilkan ardayga ah ayaa lagu soo waramay inuu ka soo jeedo koonfurta magaalada Bangalore, balse weli lama shaacin magaciisa rasmiga ahi. ilaa haatan ma cadda dambiyada lagu soo oogay, balse booliiska ayaa BBC-da u sheegay in wiilkan lala xiriirinayo barnaamijkaasi lagu faafiyey sawirada gabdhaha muslimiinta ahi ee la sheegay in la iibinayo ay yihiin xaraash. barnaamijkaasi oo hadda laga saaray internetka ama la joojiyey isticmaalkiisa ayaa lagu faafiyey sawirada dhowr gabdhood oo muslimiin ah, isla markaana saxafiyiin caan ah ama howlwadeeno u dhaqdhaqaaqa arrimaha muslimiinta, iyaga oo aan laga helin wax ogolaansho ah. gabdhahaasi ayaa la sheegay in ay iib yihiin oo la xaraashayo, arrintaa oo qayb ka ah nacaybka ka dhanka ah dadyoog muslimiinta ah ee dalkaasi Indiya. halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii Soomaaliya ugu waaweynaa. inta ku kulmeyno wararkeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.